waxaa maanta magaalada Woodwood lagu soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda Khaatumo Professor Cali Khaliif Galayd iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ka soo kicitimay magaalada Djibouti soona maray magaalada Laascaanood kana soo degay garoonka Goloyada ee magaalada Laascaanood shacabka deegaanka Woodwood ayaa meel fagaara ah kaga hortagay madaxweynaha waxaana halkaas uu madaxweynuhu khudbad kooban uga jeediyay shacabka deegaanka Woodwood ilaahay waa naga soo ururiyay safaradii aan ku maqnay waana wada hadalladaas iyo arrimaha abaaraha iyo baanu u baxnay wada hadalladaasuna si fiican bay u socdaan waa rajaynaynaa bisha dambe 20keedana in haddana la isu yimaado shirar dambe oo isdaba joogana waa la qorsheeyay ilaahayna waxaan ka baryaynaa cirka maanta waaba cusub yahay ilaahay isaga dadka wax gaarsiin kara maad gaarsiin kara waa ilaahay saasaan ka baryaynaa dhalinyarada iyo gabdhaha reer Woodwood waa idin salaamayaa waan malaynayaa maraan fogeyn baaba halka ugu dambeysay laakiin dhalinyaradu maanta ay ka firfircoontahay maalintii hore si kastaba ahaatee madaxweynaha dawladda Khaatumo ayaa ku sugnaan doona maalmaha soo aadani magaalada Woodwood isagoona la filayo inuu ka sii gudbo dhankaas iyo caasimadda gobolka Cayne Buuhoodle waa Cabdi Ciro telefishinka caalamiga ah ee Kalsan TV Woodwood